بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله لما أنتنا حفلة كسوة قريب شيء عديتها قدوميها جامعات بروفيسور رضا يا مدحضة كلا يا مامور كجامعات ينهل كجوجا أبوانا دليل رضا يعرض الجامعات دقيقته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad baan ugu faraxsanahay inaan xafladatan idin furo anigoo aan runteedii kala qayb qaadan karayn inta kale oo ay wafdi xoog badan oo ii jooga oo aan wada hadlayno aan wada fadhiisanayno darteed oo waqti yar aan haysto waxaan u inaan muujiyo oo aynu isla wada aragno ahmiyadda ay leedahay maalinta oo aan xafladda si rasmi ah ku furo sida aad ogtihiin af Soomaaligu waa afkeeni ummad kastana afkooda taariikhdooda iyo dhaqankooda iyo dadnimadooda waxay ku duugan tahay oo ku jirtaa afkooda hadba sida afkooda u koro ee u hara qaado ee ay ugu gudbiyaan aaraada iyo fikirka ay ugu gudbin karaan ayuun baana horumarka ummadaasu ay ku xirantahay qoraalkii af Soomaaliga la qoray wuxuu ahaa tallaabo weyn oo ay dawladihii markaa jirtay iyo ummadda Soomaaliyeed ay qaadatay qoliyaha iyaga macallimiinta waqtiga ahaa ee qoraalkii iyo dhiirigelintii iyo kobcinta afka ka qayb qaatay waxaan u haystaa inaanu kaalin weyn ka soo baxnay waxaan qabaa af Soomaaligu haddaan la qorin inuu maanta xiriiri ahaan in weyn baa ku korodhay hadday tahay kelmadihiisa hadday tahay naxwiisa hadday tahay sugaantiisa isbedel weyn baa ku dhacay wax badan oo soo kordhisay halkaas oo laga sii wadaana loo baahan yahay oo afka la kordhiyo waxaana hooy u ah oo dabcan arrimahaas oo kale u ah hooy u ah jaamacadaha iyo meelaha dadku ay aqoonta bidayaan cilmiga iyo dhaqanka si horumariya ummadda ay leedahay waxaan rajaynayaa in arrinta aad ka doodi doontaan waxaan ku dhiirigelinayaa dhammaan ardayda jaamacadaha dhigata in afka dhimo dheeraada la siiyo oo dadaal dheeraada loo galo oo lagu dadaalo sida aad maqlayseen shalayto madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi wuxuu ku dhawaaqay in dawladdu ay buugaagta textbook la yiraahdo ee ardaydu wax ka barato ee 8 sanadood hore iskuulka ay bilaash dawladdu ku bixinayso oo iyadoo dhaqaaluhu ciriiri yahay oo aad ogtihiin oo dawladdu Italiya tahay oo dawladdu cusub tahay haddana inay ku tallaabsatay tallaabadii ugu horeysay inay buugaagta iskuulada ay lacag la'aan uga dhigayso ardada oo ay hanayso waxa weeye waa dadaal dawladdu ugu jirto in tacliintu korodho af Soomaaliguna qayb ka yahay buugaagta badankooda af Soomaali bay ku qoran yihiin waana diyaar oo waa lagu bilaabayaa sanadkaba jaamacadahuna qaybtooda leeyihiin oo inay buugaagta eegaan oo kordhiyaan oo af Soomaaliga tayayaan baa loo baahan meelo badan oo kale ayaa dawladda ugu jira qorshaha inay ka tayayso ay ka mid tahay dhinaca farsamada iyo in ay dadku shaqo bartaan oo marka ay dugsiyada ka baxaan sanadka 8aad ee iskuulka dhamaystaan in dhalinyaradu ay shaqaysan karto istabari karto oo ay noloshooda horumari karaan ayaa dawladda qorshaha ugu jirta sidaa daraadeed dawladdu waxay ku dhaqaaqi doontaa barnaamij ballaaran oo tacliinta ay ku tayagelinayso oo gaar ahaan dawladdu waxay qorshaha ugu jira inay macallimiinta inta aan tababarayn ay tababarto oo muddo gaaban ku gaarsiiso heer ay ku awoodaan in ay wax dhigi karaan oo ardada aqoon kordhin karaan arrimahaas baan idinka sheegayaa aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa dhammaantiina ka soo qayb gashay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh